qaar ka mid ah haweenka golaha baarlamaanka maamul goboleedka Garissa ayaa soo dhaweeyay iskoolka gabdhaha ee Young Muslim ee magaalada Garissa. Waatan Marwa Fatuma Maxamed Shide oo ka mid ah wakiilada golaha deegaanka baarlamaanka maamul goboleedka Garissa oo arintaasi ka hadashay. Hashim iskoolkan aniga wax baan ka furay maalinku gabanaaga loonci gareynay aniga iyo gabanaaga iyo Eftin MCA-ga kulligay waana la casimaday وانا جوجو سكول كا أها شاهد سيد لوفري يا كلاسيسة يا مادة أخرنايان هاشم سكول كان وحاول سكول قبلت وحال الربع فورم 1 يا فورم 2 ما دام جريد 8 دبلوجو عليك مركور جريد 8 وحي قادنا جريد 6 وأيجنا قاعد لها جونيور سكندري ولوجو تلاقي لازم ما دام دولة ده جريد 6 وحي كود جرايان on primary هذا سكول كوحو قادنا يا 2023 فورم 1 يا فورم 2 ولا إيش جاي وانا سؤالي هاشم مالك سكول كالفراي وحان سكول كما بودي بونقون بس سكول كوادي سكول ما دام بودي كاتا دولة دوين بابا هذا بودي ما هنا يجرته وحساسة كذا إلا بابي بودي نودن إلا بابي إندونا ما أنت سكول كان لفراي أو يانغ مسلم وغالز هاي سكول و 844 سيستم وانا سكول دي بس بجرا قبلها قاضي وسوء عليني قضاء ماشي كليهن معلمين تيا عاد أسر رسالة على كاني لا برتر قروح بدن بيقبان وان أركي أنا عندها عن كقاضي مركب وان كلاشيا كيستي بودين واحدا بهدي كوميونتي ديماند وحلا دي بجرا وما واجوني لكن هذا سكول كوادي سكول هاشم aad baa loogu baahnaa school private oo gabdhaha oo soo galban oo magaca school iyo organization aad loo yaqaan adduunweynaha dhan laga tixgelinayo Young Muslim waa meesha ugu horeysay oo gaarsa agoon ama kaalmayso ama magac muslim wato aad baan ugu baahnayn maadaama ay yihiin ayaga organization macnaha ayaga wax faa'iido ah ay sii raadinayeen organization kan ma jirto waxay rabaan wixii iskuulka ka soo baxo in agoonta wax loogu qabto oo dadka muslimiinta ana loogu gargaaro maadi islaamnimo oo qaas u ana meeshii dadka laga baro oo shahaado ay ka qaadanayaan waxa kamid ah Arabic Quraan baa kamid oo ay akhrisanayaan Quraankan shahaado ku qaadanayaan Arabigna Quraan ay waxay ku qaadanayaan shahaado adooyinka kale iskuulada laga qaadanayo oo 844 system ku jiraan marka iskuulka waxaan rabaa inaan faahfaahin kale gooni aan ka dhiibo maadaama iskuulo fara badan oo private ay ka furan yihiin magaalada kuwii dawladana dhay iyo boarding ba ay ka furan yihiin iskuulkan aniga nafsadayda qaas ahaan waxaan u arkaa iskuul aad wax u gelinaya bulshada inuu yahay maadaama iskuulka wixii ka soo baxo ama Young Muslim secondary boys ka furnaa ka soo baxo dib bulshada wax ugu soo celinayaan iskuulahan kale oo private ka waa shakhsi nin baa qaadanaya lacagta bulshada dib wax ugu soo noqonay sidoo kale Marwa Fahan Barkhadle Cali oo iyana ka mid ah wakiilada golaha baarlamaanka dawlad goboleedka Garissa ayaa ka mid ah siyaasiyiintii ka hadlay iskoolka cusub ee gabdhaha ee Young Muslim ee magaalada Garissa marka waxaan Hashimo maanta aan meeshan isugu imaanay oon ka hadlahayno iskool cusub oo Young Muslim secondary oo gabdhaha loogu kala galay maadaama aan ognahay kii wiilasha horaan uu sii jiray laakiin maanta alxamdulillah waxay ku soo kordhinayaan gabdhaha taasoo aad iyo aad loogu baahnaa marka erigan environmentka marka erigan aan ka hadalno Young Muslim ay ku fadhido province iyo meelaha u dhadow iyo Buliftin waxaan ognahay the next school oo ku soo xugo inuu yahay Iftin Girls markaan inta ka fiirino way ka yara fog tahay marka saan filahayo oo u arko oo qiyaasayo in Young Muslim Girls meeshan looga baahnaa Young Muslim Girls Hashim markaan walaalow aan fiirino meel fiican oo waxaan arkaa environment-keedana aad iyo aad u wanaagsan yahay green oo xare islaam ay tahay ayaan u arkay classes ka saa u aragta hadda waxa waaye يعني ilmaha markii oo maartay akhris aad geynayso waa ina environment kiisi iyo meesh ku akhrisanay aad ka taxadartid waaye classroomski waxa aragnay inay aad noo tacajibiyeen modern laboratory ay qabaan
classes koodana classes aad u wanaagsan oo daaqada waa ogta ximilada magaalada aan joogno masana maanta lagu jiro in aad u kulushahay marka caruurtii hadii oo classes fiican oo markay fadhiyaan hawada banaanka freshka ay qaadan hayaan ay leeyihiin waxa u maleyn anaga ilmahayna waxa u maleyn inta la soo aadi doono waayo waa school aad iyo aad u wanaagsan saan arkahayo dhismihiisa iyo sidii loo kikaleeyay environmentkiisa aad u wanaagsan oo evergreen masaajidkii weynaa meeshan ku yaalo alxamdulillah marka young muslim waa meel aad u tacajabisay waxaan firahayaa dadkeena reer Gaarisa inay gabdhahooda ay keensadaan wiilasha horaan way sii jirtay wiilashana la keeno laakiin maadaama kan aan ka hadlayn uu iskuul gabdha iskuulkan yaa loo day madarnaanin oo gabdhaha la keensado